السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبو قلب فرن magacaygu waa Fuad Qabyaladeed. Waxaan jeclahay walaal inaan kula wadaago qiso ku saabsan samirka iyo awoodda uu leeyahay. Fadlan subscribe, like and share. Mahadsan. Guulayso. Qisadan waxaa iga sheekaysay hooyaday macaan ee buweyne mar walba la jiro naxariistiisana ha siiya iyo hooyo walba oo Soomaaliyeed. Sheekadan yaraanteedii ayay iga sheekaysay hooyaday, taas oo ahayd samirku awoodda uu leeyahay. Hooyaday oo xilligaas ihoga tusaaleynaysay in ay dhici doonto maalin guriga quruxda badan iyo cuntada macaan ay ii kariso aan ka tegi doono, taas oo na kala geen doono mowd ama waayaha adduun. Xaqiiqdii way dhacday oo hooyaday maanta waxaana kala geeyey waayaha adduun. Iyadoo waxay ku nooshahay Afrika, aniguna waxaan ku noolahay dalka Ingiriiska. Hooyaday xilligaas waxay baraysay samirka iyo dulqaadka la iga baahan yahay nolosha markay isoo wajahdo duruufo adag. Oo xaqiiqadii waxyaabo badan nolosha ay isoo wajaheen. Hooyaday waxay ugu weynaa ee igula dardaarantay wuxuu ahaa samirka. Haddaba hooyaday waxay ii sheegtay sheekadan. Hooyaday waxay ugu tiri hadda ka hor ba waxaa jiray nin caaqil ah oo meel magaalada aad uga fog ku noolaa, dadkuna ay talo u doonan jireen. Waayo dunida talada waa la iibsadaa imikadan aan joogno 2021. Dad waxaa jira talooyinka loogu tago iibiya, dadka la taliya, loona yaqaano mentoring. Mentoring waxa la dhahaa ama mentorshipka lacag la baxaa. Haddaba waayahaas waxaa jiray qofkaas ayaa loo tagi jiray, maxaa loo geyn jiray, maxaan ku idhahdaa xoolo si uu talo wanaagsan kuu siiyo. Ninkii waxa uu tagay nin adduunyada ku wareeray oo tala doona. Ninkii wuu wareystay, dabeecadihiisu weydiiyey, markii dambe wuxuu ku yidhi baax waxaad martaa waddadaas, wax allaalay wixii waddadaas kaaga soo horbaxo ee aa aragtid cun. Ninkii dhabbihii ayuu qaaday, waddadii waxaa ka soo horbaxay xaar weyn ama saxaro bini aadan oo waddada taala. Ninkii wuu eegay, wuxuu yidhi ninkii caaqilka ahaa xaar cun kugula talin maaye bal ka leexo. Waddada ayuu u gambiyey, dhinaca kale ka maray. Markuu xoogaa haddana lugeynayay ayaa isla xaarkii u arkay. Haddana wuu ka leexday, isla xaarkii ayuu arkay. xilli gabaldhac tahay ayuu dib wuxuu ugu soo noqday ninkii caaqilka ahaa halkuu ku noolaa. Wuxuuna yidhi maanta waxaan saxaro bini aadan ahayn waddada kuma wasoo arag. Ninkii wuxuu yidhi caaqilka ahaa oo maxaad samaysay? Markaasuu wuxuu ku yidhi dee anigu wixii waddada kaaga soo horbaxa cun baa tiri, wax kale oo cunana ma arag. Xaarun baa arkay, xaarkiina dee xaar lama cuno waa iskaga soo tagay. Ninka caaqilka wuxuu ku yidhi gartay berrita noqo, wax allaalay wixii ugu horeeyay waddada ku aragtid ha ka leexan cun. Ninkii sidoo kale maalinkii kale ayuu baxay. Markii uu isla waddadii marayo ayaa waxaa ka soo horbaxay xaarkii. Caaqilka taladiisii waa jabiyey, waana ka gudbay. isla xaarka ayaa ka soo horbaxay haddana. Markaasuu wuxuu yidhi warniyahow caaqilku waxa uu ku leeyahay cun, waxaaba suurtagala inuu xaarkan yahay, bal u fariiso. oo u fariistay, fartuu geliyey, wuu ursaday. saa wuxuu waa saxara bini aadan. haddana fartuu geliyey, waa uriyey, wuxuu waa saxara bini aadan. wuxuu yidhi niyoo tala doonaa tahay. Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa haddii aan maahmaadaas xusuusiyo muraadkaaga maqaar ay baa loogu seexdaa, oo maqaarka eygu waa nijaaso sidaynu wada ognahay. waa u fariistay, indhaha ayuu isku qabtay, fartii ayuu afka geliyey. markuu farta afka geliyey, xaarkii soo uriyey waa malab, waa macaan. ninkii haddana fartuu geliyey, indhuu isku qabtay, waa muudsaday, waa malab. waa eegaa daqsi baa ku shumumsan oo waa saxara aadane. ninkii waa yaabay, waa soo noqday. ninkii caaqilka yimid asagoo faraxsan, caaqilow
xaaladii shalay aan soo arkay ayaan maantana la kulmay saxaro laakiin maanta fartaa geliyey oo waan soo cunay oo maxaarkii ayaa cuntay muxuu yidhi haa aqalkii wuxuu ku yidhi soo fadhiiso ninku waa fadhiistay wuxuu ku yidhi samirka iyo dulqaadku waa sida saxaradaas oo kale qofka aadanaha markii la yidhaahda samir xaaladan ku samir waa ka gudbaysaaye waxay u tahay xaar oo samirku waa soo uraa oo waa qaraar xataa dadka Soomaaliyeed qaar baa aaminsan raalli ah oo hadaa dhaxdid nin laga raayay baa raalli ah oo la yidhaahdaa waa macquul inaad taqaanid maamaadaas haddaba sheekadan waxa aan ka qaadanayno ugu weyn waxay tahay samirka haddii aynu badanno oon kaashanno in aynu guulaysanayno Allah subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku yidhi samirka iyo salaada kaashada ayadaa guusha lagu gaarayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaamna sidoo kale aabihiis waxaa lagu yidhi fasabrun jamiil samirku waa wax wanaagsan samir markuu wiilkiisa yuusuf waayay haddaba hooyaday cashirkaas ayay bartay samirkaasna waxyaabo badan ayaan uga soo gudbay haddaba adigana waxaan rajaynayaa in aad sheekadan wuxuun ka faa'iiday haddaba haddaad wax ka faa'iiday la sii wadaag saaxiibada sheekooyinkan ama qisooyinkan noocan ah iyo kuwo kale oo lamid ah ayaad janaalkayga mar walba kala socon doontaa haddaba waxaan kaa codsanayaa inaad igu caawisid subscribe-ka meel walbaad joogtaan waxaa idin leeyahay guulaysta kula noolaada farxad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا subscribe like and share مع السلامة. قول